بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaan maanta halkan tacsiid tiiraanyo looga diraynaa abwaankeeni weynaa maxamed ibraahim warsame saciid oo maanta ku geeriyooday magaalada Hargeysa. waa damar weyn oo dumay, wuxuu ahaa halgamaa weyn, wuxuu ahaa suugaanyahan weyn, wuxuu ahaa qof wanaagsan oo ku dayasho mudan oo ummadda macalinkeedii ah. ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo, innakana ilaahay inooga daba naxariisto. abwaanku Soomaali oo dhan buu ka baxay, ummadda afka Soomaalida ku hadasha tiir weyn oo ka dumay weeye. halgamaa buu ahaa, suugaanyahan buu ahaa, qof wanaagsan oo macallin ah oo ku dayasho mudan buu ahaa. maanta tacsidiisii baanu ka soo diraynaa aniga iyo wasiirka iyo xildhibaanka iyo odayaasha kale magaalada Birmingham. marka tacsiid tiiraanyo leh oo xanuun badan oo maanta Somaliland iyo dadka af Soomaaliga ku hadla ku dhacday weeye. abwaanku muddo 50 sanadooda ayuu halgan mid af iyo mid adinba ku jiray, ummadda Somaliland soo halgamay. qof kastoo dulmanna ay ka dheehanayeen suugaantiisa iyo qoraalkiisa iyo qalinkiisa ugu hiilinay. marka maanta waxay naga dumay, waxay naga tegay nin weyn oo qiimo leh oo qaayo ku lahaa dunida, taariikh wanaagsan ku lahaa ummadda Soomaaliyeed iyo dadka af Soomaaliga ku hadla. halgamaa weyn, nin ilaahay ah. marka ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo, innakana ilaahay inooga daba naxariisto. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، waxaan maanta halkan ka diraynaa tacsiid tiiraanyo leh. waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun walahu ma akhada. innaguna inaan ku samirno ayaan ilaahay weydiisanaynaa. waxaan ka tacsiidinaynaa qoyskii iyo qaraabadii iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo adduunka dacaladiisa ka joogto. waxaan filayaa qof kasta oo Soomaaliya maanta meel kasta uu joogo inay tacsidaasi ay saameyn ku leedahay oo naxdin ballaaran waxay haytay ay ku abuurayso, balse waa wax ilaahay uu qadaray oo qof walba ma garanaysaay kullu nafsun daa'iqatul mawt aan leenahay. anagu gaar ahaan jaaliyadda UK, gaar ahaan magaalada Birmingham ee caasimadda labaad ee dalkan Britain, runtii iyadoo maanta booqasho gaaban uu nagula joogo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mr. Cabdinaasir Cumar Jaamac iyo xildhibaano ka mida golaha wakiilada, xildhibaan Cabdilaahi iyo xildhibaan Axmed Fanax. runtii aad iyo aad baan tacsida aan uga tiiraansannahay guud ahaan. waxaanan ka tacsiideynaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan, gaar ahaan qoyskiisii. waxaan doonayaa imikana inaan kusoo dhaweeyo insha Allah xildhibaanka, isaguna maxay haytay dareenkiisa tacsida inala wadaagi doonaa, kadibna wasiirka ku-xigeenka kusoo gudbin doona insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله وحده وثناء لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت. وصلناها نرشة إنه قفل الرشور دينتو هسي الشيء غيريه ويكلا نحدين بدين وأنا كلا تيرانية بدين. tacsidan maanta aan halkan ka darayno waa abwaankeenii, waa aqoon-yahankeenii, waa macallinkeenii oo maanta geeriyooday. waxaanu leenahay dhammaan intaaf Soomaaliga ku hadasha iyo Somaliland iyo qoyskii uu ka baxayba samir iyo amiin ilaahay dhammaantiin bay naga wada siiyo. isagana ilaahay naxariistii janno jannat alfirdaws alacla ilaahay u geeyo u geliyo. hadraawi maxamed ibraahim warsame hadraawi nin aynu halkan taariikhdiisa kusoo koobi karayna maaha, waa nin laakiin laga dharagsan yahay
wuxuu ahaa iyo wuxuu dalkan iyo dadka guud ahaanba ummadda soomaaliyeed taray maxamed ibraahim waxyaabahan anugu aad iyo aad aan ula dhici jiray ama aan ku taageeri jiray ama aan kaga dayan jirayba waxa weeyaan suugaantiisa iyo shakhsiyaddiisa isku mid ahayd suugaantu tirinayo iyo siduu u nool yahay waxay ahaayeen qof ay isku mid tahay oo qof keliya marka runtii waxaynu nasiib ku leenay runtii in udhaxal badan inooga tegey oo maanta ama cajaladaha laga helayo ama bugaagtii laga helayo dhaxalku inooga tegey waxaan qabaa inuu yahay shakespeareka ku labaad ee adduunka maanta nin baa la sheegaa halkan ingiriiska oo shakespeare oo aad iyo aad sheekooyinkiisa iyo suugaantiisa loo dheehdaa waxaan qabaa hadraawi inuu la mid yahay haddaanu kaba sarrayn markaa shakespeare buu inoo ahaa ilaahay naxariistii jannaha siiyo innagana dhammaanteen ba haynooga daba naxariisto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وجيري نحدن له وجيري نجا قاطي ونجا تجي قف آديات قيمة ونكتنا كلها وجيري عالم كوردن بشرية دا كنول اتكستا وعالم كنول وإسلامه سومالي الدنيا تشوكتو وردن قارهان رير سومالي لا وجيري إن دمقضي geerida maanta ka dhacday hargeysa oo allihii lahaa ku qaatay macallinkeenii weynaa abwaankeenii weynaa maxamed ibraahim warsame hadraawi ilaahay waxaynu u weydiinaynaa siduu isaguba inaga codsaday islaamnimaduna ina farayso jacaylka aynu u qabnaana ina farayo inaynu ilaahay naxariistiisa sii janno inuu siiyo run ahaantii waa geeri naxdin leh oo tiiraanya leh shakhsiyadda abwaan hadraawi runtii kelmad aan ku koobo iyo meel aan ku koobo oo aan ka soo qabtaba garan maayo wuxuu ahaa bashar iyo qof ilaahay runtii ku manaystay inuu wax ka taro qaybaha nolosha oo dhan waxaan la qabaa xildhibaanka inuu abwaan hadraawi hadalkiisii dhaqankiisii suugaantiisii iyo wixii uu nafarayay dhammaanteed tusaale nool buu ahaa oo isaga noloshiisa laga arkayo wuxuu ahaa saahid danta guud ee ummadda qof kasta oo dulman oo caalamka jooga mid cad mid muslina mid madow dhinaca addoonto iyo qaybta addoontaba geli mid buu ahaa uu u dagaalamayey oo carabkiisa iyo qowlkiisa iyo gacantiisuba uu taageero iyo mafac uu ka helayay buu ah ducun buu maanta inooga baahan yahay reer somalilandna nasiib weyn bay inoo tahay inuu inagu abtirsanayo oo innaga inaga dhashay maxamed ibraahim hadraawi nasiib weyn iyo faan weyn bay inoo tahay innagana waxaynala gudbeen inaynu taariikhdiisii weynayno oo wax laga barto oo waxaa laga baranayaa waxa weeyaan maaha mala awaal waana laysku hawlay waana laga dheegtay waana la qoray wixii ninkaa xikmad iyo aqoon ilaahay maskaxdiisa geliyey intii awooddiisa ahayd uu inala wadaagay dhiganayaal badanna wuu inooga tegay ku dheeraan maayo waxaan aad iyagana halkan uga ducaynayaa waa qaran ahaana abaal weyn aynuugu haynaa wakhtiyadii u dambeeyey dadkii cayladda ahaa dadyow kala duwan ahaa ee inuu gacan ka geystay inay intii noloshiisa uu noolaa inay noloshiisa wax weyn ku kordhiyaan oo ay daryeelaan oo halka uu joogo duruuf kasta uu ku joogo gacanta ku hayay shakhsiyan kolleyba xogagaal baanu ahaa oo yaan dadkaa ka mid ahaana laakiin mar walba kolley inuun ama iyaga aan waraysto dadkaa iiga dhowaa ama mararka qaar ba aan booqdee runtii ninkaasi nin aad u weyn buu ahaa oo qaran ahaan inaga baxay ilaahay waxaanuu weydiinaynaa inuu naxariistiisa janno siiyo ilaahay waxaanuu weydiinaynaa inuu qoyskii qaraabadii iyo qaranka iyo ummadda caalamka ku nool oo dhan oo uu ka baxayba inuu samir yimaan dhammaantan alla inaga siiyo waa geeri weyn waan jeclaan lahayn inaanu ka qayb galno oo dalkii aanu ka gaadhno laakiin kolleyba sida guddidii qabanqaabada qaranka ee madaxweynaha qaranka uu saaray ay iclaamiyeen berri baa la aasayaa taasi waa ta sababtay inaanu tacsida halkan ka dirno mar haddaynaan safri karaynin inaan geerida tegi karaynin ducuun baynu halkan uga diraynaa ilaahay naxariistii jannaha siiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu